muddo aad u fara badan ayaan kala maqneen. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mustaqbalka channelka iyo sababta aan u kala maqneen intaan oo dhan ay ugu qaadatay inaan channelka wax video aanan soo gelin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي دمان أصحابت ملك كستو أجوكتان كسود وهذا channel وانيجي عبد الرحمن اسكسو نقط وعنو حيسة بدن مدة أيا لقيت جوجا إنا عن سو جليو فيديو عصب وحا يقدم بيسي إن لابو بلودي بركهر أصحاب بدن أيا إلسو حريرتي أو كنت حن channel كا أو إيويدينا وحا كنا عي channel كا معركتي إيو سيدا أي وحيهين marka waxaan rabaa inaan idin caddeeyo sababta aan igu kaliftay inaan maaragtay muddadan aad u fog aan wax video aanan soo gelin. Horta waxaad arkaysaa YouTube lay badan oo bilaabayo maaragtay YouTube oo haddana maaragtay muddo kadibna maaragtay lawaana qadka ka baxayo ayagoona sheegin sababta ama maaragtay waxyaabaha ay qadka uga baxeen. laakiin aniga maanta meeshan waxaan usoo fariistay inaan idin sheego sababta aan uga maqnaa channelkan iyo waxyaabaha kalifay inaan muddadan intaan la fog aan wax video soo gelinin. By the way, waxaan leeyahay asxaabta kusoo biirtay muddada aan kala maqnayn channelka kusoo dhawaada channelka run ahaantii aad iyo aad ay farxad ii tahay inaan maaragtay nagu soo biirtay oo ka faa'iidaysato videoyada aan idin soo gudbiyo. Sidaan hore usoo sheegay waxa waaye horta maaragtay channelka iyo waxyaabaha ka dambeeyay asxaab badan ayaa message ii soo direen oo maaragtay weydiiyeen waxa ku dhacay channelka aniga oo kaliya oo maaragtay oo laba video oo kaliya aan soo geliyay. asxaabta qaarkood ay ugu kaftamay waxay leeyihiin ma ka caajistay mise maxaa kugu dhacay. marka hadda waxaan rabaa inaan maaragtay aan dib u noqdo waxyaabaha ay igu dhaliyay inaan channelka sameeyo. haddaa fiiriso social mediaha wuxuu u kala baxay oo kaliya labo qolo soo gudbiso waxyaabo waxtar u leh bulshada oo ka faa'iideysa ah oo maaragtay ama aqoon kororsi ah ama maaragtay khibrad kororsi ah iyo dhinaca kale oo ah macnaha fake news iyo heesaha iyo entertainmentiga. runaantii marka waxa waaye mar walbaba marka aad damacsan tahay inaad soo gudbiso waxyaabo macnaha ka faa'iideysi ah waxaa mar walbaba xoog badan waxyaabaha oo maaragtay entertainmentiga iyo fake newska. marka haddii aniga aan rabay inaan maaragtay barnaamijka aan ku hormariyo waxyaabo oo waxtar u leh inaan soo gudbiyo marka waxaan go'aansaday oo aan jeclaystay marka waxay ahayd inaan dhinaca oo maaragtay aan xooga saaro waxtarka iyo ka faa'iideysiga iyo aqoon kororsiga maadaama aan maaragtay aniga ujeedkaygana uusan ahayn inaan maaragtay YouTube-ka aan ka shaqaysto ama lacag inaan ka sameeyo laakiin ay ahayd oo kaliya inaan week ama 2 week kadib aan video cusub ama maaragtay barnaamij cusub soo gudbiyo. waayo videoga naftirkiisa markaa soo gudbinayso wuxuu u baahan yahay waqti ayuu u baahan yahay videoga aad ku samayso aad ku edit garayso oo maaragtay aad ku soo post garayso. anigoo ku dabaqayo inaan sameeyo content ama maaragtay video oo laga faa'iideysan karo oo waxtarna u noqon karo bulshada Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay inaad soo gudbiso video quality leh oo xiiso leh oo dadka ay xiiso geli karaan waxna looga faa'iideysan karo. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon hadda kadibna aan idinla wadaagi doono week kastaba ama labadii week ba hal mar inaan video idin soo gudbiyo. waxaan leeyahay maaragtay isku soo noqod wacan aad u xiiso badan. haddii aadan ku soo biirin channelkana waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biirto. run ahaantii aad iyo aad ayay farxad iigu tahay inaad nagu soo biirto oo channelkana maaragtay aad ku soo biirto adigoo ku dhufanaya subscribe buttonka. waan idinla joogaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabta waa inuu video kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.